وسيرك وسارة قاشاندقة سفيرك تركيا وكيلك تليها عيدنك حوق تركيا تليه هراء عيدنك حوق دالك الصوماليات ولالكي داهر هذا العلمي ضمان مرتي شرفتك عليه هل كان كسو قيب شيء تليها كلية ده يقودهان تلياشة تليسات النوعية العيدة مدى حوقة تلك الصوماليات يهوغا مدى تلك الجود يا دمان مرتي شرفتك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية ما انتي oo ay taariikhdu tahay 13 bisha fadlaad 2020 waxa sharaf weyn inoo ah inaad naga soo qayb gasho xafladda leyli saraakiisha dufcadii labaad iyo saraakiil xigeenka dufcadoodii saddexaad iyo ururka shanaad xafladooda qalin jabinta runtii sharaf weyn ayay inoo tahay inaan maanta soo gaarno gabagabadii tababarkii muddada dheer halkan ka socday annagoo dareemi karna waqtiga adkaay ay dunidu soo martay cudurka faafa oo saamaynta baan ku hayay inaan maanta halkan ay tahay qalin jabintii saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasina runtii gudoomiye waxay ina tusinaysaa ayadoo marxaladaas adag lagu jiray in marnaba tababarkii halkan ka socday oo san kala go'gelin waxay taas muujinaysaa muhiimadda iyo runtii hadaafta aan leenahay sida ay nooga go'an tahay mudana gudoomiye waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan kulliyadda Turkisom ee runtii halkan ka bixinayay tababarada aadka tayadooda u sareyso aaminsannahay inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka bedeli doonaan wax weyn tusaalana ay noo tahay dufcooyinkii ka horeeyay kuwan ee halkan ka qalin jabiyay kaalinta ay maanta uga jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlaha aadka muhiimka u ah ee runtii ay ka hayaan qaybo kamid ah gobolada dalka waxaan rabaa halkan inaan runtii ka xuso sida aad la socoto mudana gudoomiye waxaa la furo 17kii 2017kii waqtigaas ilaa hadda waxaan dareemi karnaa tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkan uga socday noocyada kala duwan ee halkan ka soo qalin jabiyay iyo wali kuwa hadda halkan maanta taagan ee maanta ka qalin jabinaya iyo kuwa kale tababarku uga socdo ee aan rajaynayna ayadana insha Allah ta'ala waqtiyada soo socda in ayagana muxuu ahay sheegay qalin jabintoodu ay halkan ka dhici doonto mudanayaal iyo marwooyin saraakiil xigeenka iyo dableyda maanta hortiina taagan ee qalin jabinaya waxaan aaminsanahay inay qayb weyn ka qaadan doonaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dardargelinta iyo kamira dhalinta amniga dalka horumarinta iyo sugidda dhammaan mas'uuliyadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saarneeday waxaan rabaa marka mudana gudoomiye iyo marti sharafta kale ma doonayo inaan halkan ku sii fogaado waxa laalayo wixii halkan ka socday waad arkayseen waxa soo xustay taliyihii dugsiga waxaad arki doontaan waxa noogu xigi doona waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo saraakiil xigeenka iyo dableyda halkan maanta ka qalin jabinaya waxaana saaran mas'uuliyad weyn waxaana sugaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed runtii waxaana hor yaalla ma ahan wax halkan hadal looga soo koobi karo waa xaqiiqo inaan dareensannahay
waajibaadka iyo mas-uuliyaddan hor yaalla waxaan aaminsanahay inaad guda doontaan si geesinimo leh waxaan aaminsanahay inaad guda doontaan si hagar la'aana waxaan aaminsanahay inaad guda doontaan si hakasha la'aana taasina waa mas-uuliyadna saaran dhammaanteen waa mas-uuliyad aan u dhaaranay waa mas-uuliyad oo naga sugayo muwaadin kasta waa midda aan u go'aansannay inaan u bixino nafteenna iyo dhiiggeenna ummadda soomaaliyeed iyo badbaadinta qaranka soomaaliyeed sidaasi daraaddeed waxaan idinkula dardaarmayaa inaadan marnaba aysan qalbigiinna ka goyn waxa aad halkan ku qaadateen iyo waxa kale aad qaado doontaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa caafimaad waxaan idin rajaynayaa horumar iyo barwaaqo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala kaalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaad ka qaado doontaan qayb weyn oo lama hilmaamaana waxaan rabaa halkan runtii inaan mar labaad uga mahad celiyo taliyii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlahan halkan ka socda runtii lafdhabar u ahay soo aasaasay gacan weyna ka geystay aad iyo aad u mahadsantihiin